Bismillah. So dhawaada guys. Course-keena bilaabanayna oo waa habeenkii labaad. Waxa IQ option xalay waxa introduction waa ka qaadanay oo sida loo isticmaalo acidka uu ka kooban yahay meeqa acid aad garan kartaa sidoo kale waxa ku xisaabtamaysid iyo si guud platform-ka oo dhan waa soo sharaxnay. Waxa isku dayaynaa intii oo qoraal ah inaan dul marno. Maxaa u baahan tahay horta IQ option markaad trade gareynaysid waxa u baahan tahay waxa waaye inaad haystid trading account inaad haystid. Sidoo kale inaad dooratid asset-ka ama market-ka aad trade gareynaysid ma option aad trade gareynaysaa digital ma trade gareynaysaa binary ma trade gareynaysaa forex ma trade gareynaysaa stock ma trade gareynaysaa indices ma trade gareynaysaa kan labaad waxa waa inaad haystid inaad asset-ka inaad dooratid. saddexaad waxa waaye prediction inaad samaysid dhanka suuq u raacaysid inaad saadaalisid oo tanna waxay ku xiran tahay inaad samaysid inaad samaysid fundamental analysis iyo technical analysis adoo isticmaalaya jiheeyaasha suuqa. Waran waxa laga baahan saddexdan inaad haystid trading account inaad haystid iyo inaad dooratid market-ka aad trade gareynaysid iyo inaad prediction samaysid. saddexdaas inaad haystid waa isla arkaynaa sida loo sameeyo trading account qaarkiin badanaa waa isticmaalaan aan filayaa account demo aad samaysanayna waa trade gareynaynaa. markale maxaa laga baahan horta IQ option intaad trade gareyn waxa u baahan tahay inaad iska fiirsid waxaan intoo sharcigiisa iyo meelaha ku soo jeeda iyo wax la aqoonsan yahay miya inaad iska fiirsid. intaadan abuurin horta account IQ option ama forex broker waxa u baahan tahay horta inaad waxaan verify ku samaysid. verify-gaas loo jeedaa maxaa lahaa regulated waxaa kamid kan hadda meelaha uu ku diiwaan gashan yahay IQ option kan waxa waaye Cerberus meelahaas uu ku diiwaan gashan yahay waa kana meesha uu ku diiwaan gashan yahay saddexdan xarumood oo ka regulate gareysan yahay. waran waxa horta inaad iska fiirsid waxaan wax sharci miya oo hadii lacag ama investment aad ku sameeyo lacagteeda meel amaan ah oo safe ah ma ku jirtaa. dabcan IQ option waxa waaye waa regulated waa broker oo caalami ah oo suuqa kala duwan ka shaqeeyo sida xalay aad soo sheegnay wuxuu ka shaqeeyaa maxaa la dhahay forex ka shaqeeyaa binary options ka shaqeeyaa stock ka shaqeeyaa indices ka shaqeeyaa intaasoo market oo ka shaqeeyaa sharciyadiisana waa kana waa saddexdan maxaa la dhahay Qabris Security Exchange Commission iyo Markets Financial Instrument iyo Directive iyo State Financial Service Authority saddexdan oo ka diiwaan gashan yahay. marka regulatedkiisu ogaatid waxa ogaanaysaa haddana waxa baaritaan kaaga baahan inaad iska ogaatid waxaan scam miya ama wax oo legal waa dabcan scam ma ahin oo waa legal waxa waaye sida simple su'aasha waxa waaye ma ahin maxaa la dhahay scam ma ahin IQ option waxa waaye waa regulated broker waaye waa imaan kartaa meel walbo la invest gareysanayo market walba invest gareysanaysa hada IQ option forex stock waxa waaye khasaarana uu leeyahay faa'iidana way leedahay. waxay ku xiran tahay qofkii istiraatiijiyada isticmaalay iyo sida uu trade gareynayo ku xiran tahay sidaas oo ugu badbaadaa khasaaraha faa'iido ku filan oo sameynaa. wakana waxay ku xiran tahay right strategy ah haystid iyo skill-kaaga waxay ka saamaxay in lacag ka samaysid IQ option-ka waa meel safe ah. IQ option waxa ma ka yahay wadankayga wadamada laga isticmaalo ama wadanka aad joogtid inaad iska ogaatid waa intaadan bilaabin inaad ogaatid waa wadankaaga ma ka shaqeynaa IQ option
meeshan waxaa kugu tusi doonaa wadamada oo uusan ka shaqeynin IQ option oo laga helaynin oo available ka ahayn oo ka mamnuucan yahay. intaan wadan waaye intaan wadan midkood haddii aad joogtid kuma saamaxayso inaa IQ option aad trade galaysid. USA, Canada, North Korea, Australia, Belgium, Iran, Israel, Japan, Latvia, Palestine, Russia, South Sudan, Syria. intaan wadan kama shaqeeyo IQ option oo sharci kama haysto. inta kasoo hartay haddii aad joogtid waxa waaye IQ option waa isticmaali kartaa. marka intaad soo ogaatid waxaa u baahan tahay maxaa la dhahay in account demo horta two u qaybsamaa waxa waaye mid oo demo iyo mid oo real ah. IQ optionka midkaan demo waxa waaye waa mid oo ku trade gareynaysid oo si oo practical xirfadaada iyo skillskaaga ku tijaabinaysid. codka saaid uga go'a. codkay saaid oo okay waa ku soo celinaya inteedan fahmin ama qadka caawa dhan oo codka xumaa. ayuu soo dulmaro wadamada hadda marka joogto ku soo celi. wadamada marka aad joogno IQ option wadamada oo san ka shaqeynin oo aadan ka isticmaali karin listigan wadamada listigan ku jiro aa ujeedid waxa waaye ma ku isticmaali kartid oo mamnuuc ku yahay. USA haddii aad joogtid, Canada, North Korea, Australia, Belgium, intaan wadan haddii aad joogtid waxa waaye ma isticmaali kartid. inta kasoo hartay haddii aad joogtid waxa waa isticmaali kartaa IQ option. IQ option horta laba u qaybsamaa oo mid waa lacag oo virtual ama demo, midna waa real. koodiina qofka markii intuusan sameyn maxaa la dhahay oosan ka qayb galin intuusan suuqan investment ku sameyn waxaa loo baahan yahay in uu practical sameeyo oo strategidiisa oo iska xaqiijiyo oo in profit oo ka sameyn karo win ratekeeda markuu ogaado. markaas kadib oo sameyn karaa maxaa la dhahay oo lacag real ku shuban karaa asigoo ku kalsoon oo gacantiisa ay fadhiso. markaas qofku u bedelan karaa real. waxa waaye ani strategy isticmaalaysid lacagtaada realka ku isticmaalaysid wuxuu leeyahay lacag 10,000 oo demo ah waa ku trade gareynaysaa waa ku sameynaysaa. haddii aad ku qanacdid oo strategies ay ku shaqeynayso waxa u wareegsanaysaa account realka ah. account realka imaanay meeshaas ku trade gareynay. demo waxa waaye sida waxa waaye ma laga baahnaa wax deposit inaad sameysid ma laga baahnaa. marka account demo joogtid waxa waaye waa lacag free $10 oo macnaheedu $10,000 oo virtual ama fake ah oo aad ku testgareynaysid platformkan oo intaadan u gudbin realkaaga. marka waa sameynaynaa waa isla arkaynaa sida qofkan wuxuu u baahan yahay markaad sameynaysid geedkan emailkaaga ama aad ku isticmaali kartaa ama facebookkaaga emailka kugu xirnaa ku xiranaysaa waa trade gareynaysaa lacag 10,000 oo free ah ku jirto anytime waa trade gareynaysaa xataa khamiisii aadhe sabtidii iyo xadka maalmaha oo holidayga market furnaa jiro oo OTC lahaa isna waa isla arkaynaa oo waa gaareynaa. marka kaagama baahna tan inaad deposit sameysid iyo inaa document iyo waxyaabahaas dhan aad gelisid kaagama baahna. kaliya waxaa sameynaysaa gmailkaaga iyo passwordkaaga ku xiranaysaa meeshaa ku create gareysanaya magacaaga ku create gareysanaya waa trade gareynaysaa. strategy ayaan siinaynaa oo habeen dambe noo bilaabanayaan. strategy-daas qaadanaynaa waxa waaye qofka live-na wuu noola sameynaa maalintiin asna uu sameynaa groupka oo jaadka uu soo dhigaya qofka resultigiisa iyo strategy inuu shaqeynayso. kaliya waxay kaaga baahan tahay in oo computer aad haystid oo aad soo degsatid platformkan kadibna aad sameystid maxaa la dhahay oo aad iska diiwaan gelisid. marka intaad sameysid waxaa isla arkaynaa maxaa la dhahay marka intaan sameyno waxaa u gudbaynaa maxaa la dhahay sida loo sameeyo. intaan u gudbin sida loo sameeyo intaan xalayna waa soo wada aragnay oo maxaa la dhahay waxa waaye platformka xalay waa furnay ashirkiina waa idin soo dhignay. intaan u gudbin wax su'aal ah
Hello guys. أستاذ أنا كل سؤال ما قبله ما فهم أنت أنا ما فاهم كله haddii oo jiro wax su'aal qof qabo waxa waaye wuu na soo weydiin karaa waxaan free ma ahin oo lacagaa ku bixiseen waxaan loo baahan yahay waxaaneti wixii xoogaa yar oo mugdi kaaga jiro waa isla naaqsheynaa waxa waaye waa sameyneynaa si ilaa aad ka fahantid midkiin hadduu jiran waxa waaye qof sameeyey maxaa la dhahaa oo u samaysan yahay aqoon practical oo had computerka isticmaalaya hadduu jiro wuu nala soo sheekareyn karaa waa isla arkeynaa intii xalay aa soo qaadan iyo intaana xoogaa weydiineynaa shaashadiisa oo noo sheergareynaa waa la weydiinaa wixii oo intii xalayta uu ka fahmay ma jira horta qof samaystay demo account ustaadii waa abku waa soo degsaday laakiin qaabka oo loo sameeyo gmailka markaan geliyey baasweerkii waxyaabahaasaan fahmi waay adi app intaad soo dejin ka hor waxaa sameynaysaa maxaa dhahay google-ka ku qoraysaa iq option then meeshaas iska diiwaan hadda aad isla sameyno marka google-ka ku qoraysaa maxaa iq option iq slash aad dhehaysaa markaas iq option intaad tegaysaa ujeedaa total free demo markaa ku dhufatid waxaa ku keenaya halkan waxaa meeshaana ka abuurinaysaa sign up aa dhehe sign up markaa dhahayd waxa waaye ku keenaya sign up aa dhehaysaa emailkaaga iyo passwordkaaga gashanaysaa emailkaaga iyo passwordkaaga markaa gashid si automatic marka asaa kuusoo download gareynayo marka kusoo download gareysid waxaa gashanaysaa platformkii aad gelinaysaa gmailkaaga iyo passwordkaaga isla dulmarna hadda aa sameyno idinkoo ujeedo option. Sign up. markaa saas u gelisid emailkaaga iyo passwordkaaga sign up aa dhehe automatic oo isku furaayo ma jeedaa marka platformka dhexdiisa ku keenaya horta intaan platformka soo degsan google-ka tag website-ka iska soo diiwaan geli oo iq option badanaa waxaa sameynaysaa umaleynaa platformka inaad soo dejisid aad gelinaysay emailkaaga iyo passwordkaaga saasaa samee tag google-ka tag iq option website-ka tag meesha iska soo diiwaan geli si automatic oo ku keenaya platformka then meesha emailka iyo passwordka isaga soo diiwaan gelisa aad gelinaysaa
meesha ku trade gareynaya marka practicalkaaga dooranaya marka saas taa asaa kuu keena real maaragta ama demo ku keenaya ma jiraa horta qof isku dayay oo u samaysan yahay IQ option berito habeen dambe waxaa bilaabi rabnaa istiraatiijiyadda bilaabi rabnaa السلام عليكم تيجا soo dhawaad wacalaykum salaam ustaad كله أنا عاوني عصوبة هي عاوي بورسة إن شاء الله أنا إن بدون يسكدي marka qaabkii yaraa inuu isticmaalayo istiraatiijiyadii intaas iga dhimayd marka intaan insha Allah waxaan soo biiray inaad iga qabtirtaan insha Allah waa ku samaysan yahay soma akoonkaaga tiijo uu samaysan yahay halkan aan ujeedaa oo i keenay maxaa lahaa platformkii oo keenay qof inta xalay ay ka mid ahayd ama qofka hadda ku jira xoogaa su'aalo ka weydiinayna platformkan gudihiisa inaa ogaano inaa xoogaa la socotiin oo u gudi kali karna istiraatiijiyad iyo waxaabas magacaa ustaad horta jibriil bala dhadama jibriil markaa rabo IQ option platform hadda waa ujeedaa wuu noo furan yahay sax markaa rabo hadda shaashadda waxaa ii saaran maxaa lahaay line ii saaran markaa rabo charts inaad ka dhigto xagee tagaya waxaa la tagayaa xagga bidixda saacadda lagu kordhiyo indicatorska hoos u daa xagga hoose isagoo ku calaamadeynaya wacdaad dooranaya midka oo saxda ah inaa ogaano inaa nala kan miyaa doortaa kaas indicatorska weeyaan ka hore aad go'aabteen صح waa gartay sax kan waa indicatorska yes kaasina waa maxaan ku dhahday isna waa graphical tools waa meeshii lagaga cabiray line-ka iyo horizontal tree line-ka iyo aad iyo aad sax marka hadda kana dooranayna oo ugu dhigna charts-keen maxaa la hayay kan sax aad iyo aad ma sha Allah صح حاسبيننا كنا دورنا كان الاستيقاظ كان سؤال كله وحاربنا markii trade-ka la galayo time maxaa la dhahay expiry time xagee laga saxdaa trade-ka markaa galeen waxa waaye markii 60 second aad ku galayso ama 5 minute aad ku galayso xagee oo setup-ka oo time frame-kaas aad ka saaranayna xagga saacad dilay lacag xagga looga duldhigay active time-ka deposit-ka hoostiisa yes deposit-ka hoostiisa marka intaad rabto ayaad ka dhiganaysaa inta daqiiqo ku sanayo amba 5 daqiiqo amba 2 daqiiqo amba 3 daqiiqo aad xarna arday kale oo dadkii xalay aan wada bilaabna ka mid ah anima soo qabta ama waxa waaye ustaad aniga ana diyaara okay magaca ustaad cabdiraxmaan ustaad cabdiraxmaan waa nala socota xalay waa ku jirtay ustaad waa idinla socday حتى ديمو وان سميو هاد يرحوغا سيديتن percentage buu yiri baad marinaysaa marka waan yara buuxiyay lambarka iyo xasan ku yara buuxiyay idiyadii waxa saay un baa iga maqan okay dib ma lahan strategy waxa soo qaadayna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markaa rabo maxaa la dhahay hadda waxaa ii furan hal lacag oo euro NSD oo kale markaa rabo lacag kale inaas ama asset kale aad doorto xagee taabanaya ustaad meesha balasta ku qoran tahay waa taabanaysaa balasta sare oo euro NCD ku xigta ma sha Allah euro NCD ku xigta balasta waa taabanaysaa
kabacdi optionkaad kasii dooranaysaa صح optionkaad taabanaysaa kabacdi binary ama digital baa kuu soo baxaya marka labadaasaa ugu caan baad nagu tiri xalay oo aad dadka loo tiragarayaa forecasta darabti waa dooran kartaa stockska waa dooran kartaa commoditieska waa dooran kartaa marka binary digital baa aad ugu caan baad nagu tiri oo waqti kooban oo xayimana leh iyagaana badan ku shaqeeyaan marka intaan waa trade gareyn kartaa oo waxa ugu fiican sax platformka la joogo السلام عليكم وعليكم السلام وكذا waa lagu soo qabanaya marka platformkan la joogo waxa ugu caansan labadan binary iyo digitalka waa optional waxa waaye waqti yar ku trade kartaa hadii 60 minutes ku trade gareyn kartaa hadii forex waxyaabo sidaarta xoogaa marka platformkan la joogo asna sidii oo maxaa la MT4 oo kala waaye laakiin kaata ku waan hadii su'aal kale ku weydiiyo marka aad trade inaan galo oo prediction aan sameeyo oo suuqiga galaayo waxa rabaa suuqan hoos u galo waxaan dooranayaa ustaad lowda tooranaysaa tan caswi markaad hoos u raacaysid waa lowda weeye lowda qof kale oo kamid ah ardayda xalay arnaa weydiiyo oo platformkan oo dil xalay waa ku sharaxay waxa waaye trade xataa waa sameyn qof kale macallin qofkii hadda caawa soo galay seeliyeela caawo ma ka haystaa wax information cashirkii ugu horreeyay xalay ku dhaaf waa duubnay haddana intii xalay iyagoo qoraal aan soo dulmarnay haddana waxaa ardayda la weydiinaya platformkan gudihiisa waxa muhiimad waxa waa marka sameynayna IQ option platformkan ka trade gareynayna qofkan muhiim waa inuu fahmo platformkan wax ka soo muuqdo saasadan hortiisa waxa ku yaalo dhan inuu fahansan yahay maadaama uu lacag rabo inuu ka sameeyo lacag real oo rabo inuu iska gareeyo anigu macallin adoorale ah waxyar anigu forexiga wax yar ka bartay oo ilaa advance wax yar aan gaaray laakiin anu hadda wax yar waxaan soo galay daqiiqad ka hor marka ninka kale su'aalaha weydiinaysay صح casharkii xalay qaabkeen ku heli karaa dhimalay waa soo dhageysanayay okay casharkii xalay waxa waaye group ku jira insha Allah linkiga lagu soo diraa group Telegram ku jira meesha kala soconaysa hadii forex maxaa lahaay advance daaso ka ahead oo waxa waaye kana waxa waaye insha Allah waxa waaye wax badan waa ka fahmay insha Allah wixii isku mid waa jaartiskii xaga ku soo aragtaa intuu yaalo wuxuu kala duwan yihiin forex waxa waa wax continue oo soconayo ahaa kana waxa waaye maxaa lahaay options waa prediction asmeene waxa u raacaysaa maxaa lahaay kor ama hoos iyadoo waqti kooban ugu badan 6 second oo yar waxaana ugu badan maxaa lahaay inta waa ka dhigin kartaa time frame kaada 15 daqiiqo halkii trade waa ku jiri kartaa 1 hour waa ku jiri kartaa hatta 1 day waa ku jiri kartaa oo marka wuxuu ugu sahlan yahay waxa waaye kan percentage ku xisaabsamay hadii oo $10 aad dhigtid hadda suuqa 94% ku soo laabanayo oo micnaheedu waxa waaye hadii $10 aad dhigtid waxa faa'iideysaa $9 iyo $40 hadii aad khasaaraysid waxa khasaaraysaa 10 aad dhigatay marka waa isla fahmeynaa si guud cashirkiina xagoo yaala slides hadda qaadanayna si guud waa dulmareynaa oo waxaan IQ optionka muxuu yahay si guud hadii aad dulmarno IQ optionka uu sheego waxa waa horta market macne oo waa broker waaye broker kana wuxuu sameystay platform u gooni ah platform kana marka wuxuu leeyahay ilaa dhowr market oo leeyahay oo kamid ah forex-ka oo kamid ah options-ka oo kamid ah intay ku jiraan assets-ka halkan intaan assets oo leeyahay oo options-ka ay kamid yihiin options-ka wuxuu noqon karaa binary option iyo digital option forex-kan wuxuu noqon waa midka iska caadiga ah taqaanay stock-ga soo galay cryptocurrency soo galay commodities soo galay CDF waxaa intaan oo market uu ka kooban yahay muhiimadda horta IQ option waa broker waa la socotaan si fiican si guud IQ option waxa waaye waa platform
maxaa lahaa marka la joogo forexiska wuu ka sahlan yahay sidoo kalena haddii la khasaarana waxa waaye oo qofku uusan lahayn maxaa lahaa discipline oo khasaarihiisan waxa wuu ka badan karaa kaas because waxa waaye kan 1 minute iska dhiganay $1 waa khasaari kartaa haddana waa ku cilnay waa khasaas oo khasaare laakiin waxay u baahan tahay qofku in horta discipline oo leeyahay strategy oo leeyahay strategy-diisa maxaa lahaa ruleskeeda iyo inta ruleskeeda uu sugi karo maxaa lahaa markuu ruleskeeda uu si kalsooni leh oo ku trade gareyn karo qofkan oo leeyahay maxaa lahaa trading plan hadii suuqan ka dhigtid maxaa lahaa balwad oo kale markay ka qabato baa iska furtid computerka aagashid waxa waaye yaa wareer badan kala kulmaysaa waxaa loo baahan yahay in aad sameysid maxaa lahaa trading plan ayna ka noqoto waxaan shaqo oo waqti u gooni ah inaad leedahay oo hadday noqoto subaxii ama hadday noqoto qalabkii inaad mar u soo fariistid oo trades cayiman aad qaadid markaas akoonkaaga inta ka baxaysa inta ku soo kordhayso waa la socon kartaa laakiin haddii oo 24 hours haddii aad soo fadhiistid oo maanta inta uraac kor uraac hoos uraac haddii aad dhahayd waxa waaye waa ku jahwareeraysaa waxaa imaanaysa inaad kaliya jabtid marka waxaa loo baahan yahay dad badanaa lacag ka sameeyo waxa waaye maalintii kumanaan ka sameeyo oo waxaa la isku dhaaf waxa waaye sida khasaaraha loo maareeyo ugu horreyn markaa rabtid inaad trade sameysid waxa waaye inaad ku xisaabtantid akoonkaaga inta ku jirto iyo inta aad rabtid inaad ku kordhisid iyo inta aad rabtid in haddii oo khasaare aad la kulantid inta u gashaa inaad khasaartid marka intaas saddexdaas point ay ku calaamadeysan yihiin waxa waaye meesha u socoto waa taqaanaa oo markaas jahwareer lama kulmayso waxaan lagu go'aamiyaa mar walba labada trade ugu horeysa suuqa haddii oo ugu jirto $100 oo aad rabtid inaad maanta trade sameysid oo calaa trade $10 ku galaysid trade ugu horeeya haddii aad gashid aad gareysid waxaa option oo leedahay inaad sii wadid oo trade kale aad sameysid waa sii waday waa lose gareysay trade saddexaad waa sameyn kartaa midka koowaad waa win gareysay midka labaad waa lose gareysay midka saddexaad haddii aad lose gareysay waa joojinay haddii aad win gareysidna waxa waa joojinay oo waxaa sameysay akoonka balance ku kordhisay haddii labada trade u horeeyo oo aad khasaartid waxa ugu sii laabatid waxa waaye khalad waaye in oo discipline aad leedahay oo markii khasaare aad la kulantid ka dhamaan kartid suuqa aad rabaa marna suuqan waxa waaye hadduu dhinacaaga yahay oo dhinaca u gashay dhinaca kale oo u dhaqaaqayo waxa waaye suuqu uu xun yahay istiraatiijiyadaada kuma ixtiraamayo qadameyso soo shaax markii uu wanaagsanaado oo istiraatiijiyadaada ay ku shaqeynayso trade garee ilaa 10 trade haddii aad win gareyn kartid markaas waa wadee laakiin si professional haddii aad arkid inaad u trade gareysid waxa waaye inaad leedahay waqti trading oo time inaad leedahay sidoo kale trading journal inaad leedahay oo ku qoran yihiin lacagaha trade gareynayso meeshan assetska markaa imaatid aafurtid hadda waxaa ku jiro ilaa iyo 40 lacag ku jiro marba mid hadaa kil ku siishid waa ku wareeraya waxaa la rabaa in waxaada ay ku cayiman yihiin oo meeqa lacag aad trade gareyn rabaa maanta inaad iska soo fiirisid eventiska jira maalintaas inaad iska soo fiirisid meeqa eventiska lacagaha qaar eventiska ay kasoo baxayaan ama newska ay kasoo baxayaan inaad calaamad saartid oo aadan u baahin markaad sameysid waxaa dhan ay ku yihiin wax jihaysan waa suuqa lacag fiican waa ka sameyn kartaa marka waxay idinka noqon maxaa la dhahay hobby idinka noqon ha noqoto waxaan xirfad oo aad ku shaqaysanaysid ha noqoto macallin hal su'aal ma ku weydiiyaa adoo raalli ah aad iyo aad soo markaan furanayo akaan ahaan markaan furanayo ma ka duwan yahay forexiga tusaalaha wuxuu kaga baahan yahay broker inaad samaysatid brokerkaas accountkiisa lacagta ku shubtid kadib markuu ku activate gareeyo aad markaa ganacsatid kana ma saasa mise oo kale tusaalahaan haddaan premier bank haddaan hadda ku leeyahay account toos ma investment ma samayn karaa mise waxa u baahanahay sida kaa oo kale broker ina lacagta ku shubo lacag
waa u baahan tahay oo IQ option ka dhanaa waxa uu yahay broker uu yahay website-kooda tegaysaa waxaa sameynaysaa maxaa la dhahay meesha iska diiwaan gelinaysaa Gmail iyo passwordkaaga isku diiwaan gelinaysaa wuxuu kuu soo bandhigayaa markii meeshaas buuxisid wuxuu kuu soo bandhigayaa laba page maxaa la dhahay laba option in real oo ku dhahayaa sameyso ama demo anaad sida kaaga muuqato shaashadan waa practical account ku qoran marka practical account-ka dooranay practical account-kana dooranay adigoo saan ugu shaqeysanayo bedeli kartaa maxaa la dhahay real u bedelaysaa adigoo saan ugu shaqeynayo halkaana daawanay waxaa tagaysaa maxaa la dhahay personal data personal data markaa waxaa sameynaya marka shuruudihii intaa ka arkeyna oo waxaa lagaa rabaa isla sidii passport waa lagaa rabaa oo deposit markaa sameynaysa qasab waa inaa banki leedahay lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa maxaa la dhahay waxaa farfaagareyskiis wuxuu u baahan yahay intaa step inaa martid horta step ugu hore waxa waaye phone numberkaaga inaa horta verify-gareysid then emailkaaga aa ku verify-gareysid marka intaas sameysid oo wuxuu kusoo waxaa ku xigo maxaa la dhahay aa sameynaysaa deposit aa sameynaya waxay kamid tahay shuruudaha oo akoonka aad ku verify-gareysanaysa kamid tahay deposit aa sameynaysaa lacagta ugu yar aa dhigan kartid waa $10 lacagta ugu badanna waxa waa intii markaas aa awoodid ilaa iyo 10,000 waa dhigan kartaa marka asna sidoo kale waxa waaye wuxuu kaaga baahan yahay inaad iska diiwaan gelisid oo documentigaaga waxaad hadhowtid waxay si ay kugu noqdaan informationkaa saxda ah si loo haayo in waxaad isku magaca noqdaan magaca ku diiwaan gelinaysid iyo magaca bank account-kaaga ku qoran waxaas inay same ahaadaan passport inaa leedahay inaa national ID leedahay inaa leasing leedahay saddexdaas option oo kuu soo bandhigaya saddexdaas midkii aa haystid aa ku upload gareynaysaa marka asna wuu kaaga baahan yahay in oo aa sameysid maxaa la dhahay account verification inaa sameysid leasingku waa aqbalaya soo ma asaga ha leasing waa aqbalaya passport waa aqbalaya national ID midkii markaas aa haysto saddexdaas midkood wuu aqbalaya marka shuruudahan waxaa kamid ah inaad deposit sameysid macallin brokeradiisa waa kala fiican yihiin soo ma brokeradiis waa jiraan brokero badanaa jiro maxaa la dhahay mise asaga hal brokerka ugu fiican midkan hadda anaga aan isticmaalayno waa IQ optionka naftirkiisa broker wax kugu kala binary lahay way jiraan marka asi platformkana fiican oo waxaa jiro maxaa IQ optionka ugu fiican brokerkan waa tegaysaa website-ka aadan ku fahmo maasanta website-kiisa tegaysaa waxa waaye free demo iska diiwaan gelinaya then demogaas intaa ku tijid practical ku sameynaysid markii aa ogaatid in waxaan ay ku shaqeynayaan real aa ku dhiganaya real oo bedelinaya waxa waaye marsaana kugu soo muuqanaa shaashadiisa halkaana taganaysaa waxa waaye deposit aa sameynaysaa ugu horreyn deposit waa sameyn kartaa adoo document wax gelin waa ku shaqeyn kartaa laakiin markaa rabtid withdrawal sameyn rabtid waxaa documentiskaada haddii hadda aadan haysin oo waxaa lacala ku dalban yihiin oo kale waa kusii sameysan kartaa maxaa la dhahay si normal caadi ah waa usii trade gareyn kartaa markii aa rabtid waxaan markii lacagta xoogaa ay ku kororto aa isdhexdid faa'iidaa sameysay waxaad gelinaysaa marka documentiskaaga saxda aad gelinaysaa akoonkaaga waxaa ka dhiganaysaa mid oo sax oo verification oo la aqoonsan yahay ka dhiganaysaa marka waxaa kuu fududaanaya inaad withdraw sameysid oo hadhowtii cilad iyo waxaas ay kugu imaan aa ka hortagaysaa marka si guud waxa waaye waa lagaaga baahan yahay in waxaan iska diiwaan gelisid oo si saxan weliba oo documentiskaagan ay ahaadaan documents oo maxaa la dhahay oo waadix oo la arki karo wuxuu IQ option waxa waaye shuruudihiis way adag yihiin oo waxa waaye haddii oo adoo akoonkaaga magacaada kugu qoran yihiin haddii oo qof kale xaqiisa camal aa isticmaash maxaa la dhahaa kaarkiisa kale aa isticmaashid haddana kaar kale withdrawal aa ku samaysid waxaa lagaa baloogaya akoonka waxa waaye dib dambana u samaysan kartid marka waxaada inay ku ahaadaan wax oo personal oo adig ku khaas ah
isku daya in qofkii oo u furneen waxa waaye caawa ha furto demo ha furto groupka waxa waaye wuu leeyahay maxaa la dhahay whatsappka chatting wuu leeyahay qofkii oo wax ka celido waa waxa waaye meeshuu kusoo qori karaa waa loola sameynayaa habeen dambe waxaa rabnaa 3 istiraatiijiyad ahaynaa waxaa noo haray 5 habeen noo hartay inaan sameyno maxaa la dhahay istiraatiijiyada inaan qaadano sida loo set up gareysto sida shuruudaheeda waxaasoo dhan aan qaadanaynaa marka waxaa la rabaa in diyaar la sii ahaado oo markii waxaan hore in ha ka invest ka sameeyno waxaan mar walba maxaa la dhahay suuqyadan oo online investment waxa waa iska risk badan yihiin qofka waxa waa inuu diyaar u ahaado waay lacag cayiman oo markaasna ka sabri karo oo inuu suuqan geliyo lacag oo qof aad ka soo deensato oo kale ama lacag lagaaga rabo oo kale waxaas hadii aad ku bilaawid waxay noqonaysaa in xogaa jahwareer aad la kulantid oo wixii khasaare aad la kulantid waxa waaye hadhown waxaa kula soo dirsaa maxaa la dhahay walwal iyo waxaas maloo baahno lacag yar oo adiga aad leedahay oo haddii khasaare ay kugu imaato aad ka sabri kartid loo baahan yahay in suuqa la macalin abkan la soo dejinayo oo IQ optionka abka ma laga geli karaa asaga markii la sameysanayo demo marka mise waa in website-kooda la tago waa horena website-ka tag oo website markaa iska diiwaan gelisid si automatic waxba asaga kugu soo dejinaya oo ku soo degaya ama si personal loo soo degsan kartaa muhiimadda waxa waaye horta website-ka inaad tagtid waa hadda ka soo qaad forex oo kale markaa wax sameynaysa broker MT4 kama sameynaysa waxa ka sameynaysaa maxaa la broker website-kiisa booqanaya marka waxaa laga baahan yahay brokerka website-kooda inaad booqatid oo meesha ka soo sameysid maxaa la dhahay soo create gareysta account qof walba uu leeyahay gmail maxaa la dhahay ha ka soo create gareysto oo ha soo sameeyo si habeen dambe oo iskula jaan qaadno maxaa la dhahay u sameeyno istiraatiijiyadii sidoo kale waa idin soo qaban lahaa qof walba caawsha sidoo soo shaqeeya dhigi lahaa codkaada euro waxba ma maqlo codka wax yar maxaa la dhahay waxaa sameysaan markaa aragtid baalka inaad iska diiwaan gelisid waa qasab inaad tagtid website-ka tag kasoo create gareyso practicalkaaga u bedelo halkaan uu keenaya marka platformkan aad soo degsatid maxaa la dhahay codkayga ma xun waa maqlaa ustaad weeyaan waa maqlaa codkaada waa okay waay dadka qaar khadka ku xumaanaya waxaa muhiim ah in waxaan iska soo degsatid maxaa la dhahay waa iska soo degsan kartaa laakiin muhiimaddu waxa waaye in uu ku create gareysan yahay account hadduu ku create gareysan yahay platformka haddaa soo degsatid waxa waaye wixii account-kaagii aad gelinaysaa gmail-kaagii iyo password-kaaga aad gelinaysaa meeshaan uu ku keenaya markaa saas sameysid waxa waaye ku celi waxaan suuqan wuxuu u baahan yahay maxaa la dhahay timing u baahan yahay iyo backtesting badan wixii lagu siiyo istiraatiijiyada lagu siiyo maalintii dhan ku trade garee waxaa kuu soo baxaya marka waqtiga ay ku habboon tahay istiraatiijiyada kuu soo baxayso marka waqtiga ay ku habboon tahay kuu soo baxdo aana aragtid in win rate-keyga iska xisaabinayso maalintii waxaa isku daya in 10 ama 20 ama 30 maxaa la dhahay aad sameysid maxaa la dhahay ilaa iyo 30 maxaa la dhahay trade camal aad sameysid markaas waxaa kuu soo baxaya inta aad khasaartay iyo inta aad faa'iiday marka intaas kuu soo baxaan waxaa sameyn kartaa waa ogaatay marka way kuu dastagaraysan tahay istiraatiijiyadaas inaad ku shaqeyn kartid oo aad kuu soo baxaysa haddii kale waxaa kuu soo baxaya in istiraatiijiyadan oo laisku haleyn karin oo ay tahay maxaa la dhahay luuskeeda uu badan yahay marka muhiimadda waxa waaye in la sameeyo maxaa la dhahay maxaa la dhahay backtesting fiican in la sameeyo in practical la sameeyo si hadhowtii aa u aragtid wax safe ah inay kuu soo baxeen istiraatiiji la isku hareyn karo waxaa bixinaynaa ilaa iyo 3 istiraatiiji oo active ah 3 istiraatiiji laba waxa waaye waxaa isticmaalaynaa jiheyaal indicators isticmaalaynaa
midna waxaa isticmaalaynaa graphic toolskana isticmaalaynaa oo maxaa la dhahay sida caadiga oo waxaa fahmaya dadka forex soo isticmaala oo kale waxaa isticmaalaynaa demand zone iyo supply zone aa isticmaalaynaa waa mid oo active ah saddexda strategy aan qaadanaynaa habeenadan soo socdo qofkii oo practicalkiisa iyo waxaas ay u samaysan yihiin waxa waaye waa loo share gareynayaa shaashada waxaa arkaysiin iyadoo lacag real lagu sameynayo lacag practical lagu sameynayo si oo kalsooni ay idin gasho macalin adoo mahadsan may maqlaysaa fiican horta aniga caawa waa kusoo dhex dhacay hadda unbaan soo diiwaangeliyo aan soo galay saacadda casharka uu bilaabanaya ii sheeg fadlan cashirka wuxuu noo bilaabaa 2 saac iyo rubi oo habeenimo noo bilaabaa 2 saac iyo rubi oo noo bilaabaa oo maasha Allah salaada cisho kadib 2 saac iyo rubi oo noo bilaabaa si fiican marka habeen dambe waxaa naga rabtaa inaan account soo samaysano soo ma ilaa berri accounts inaad soo samaystiin wuxuuna ku fiican yahay maxaa la dhahay hadda waxaa idinka tusaa maxaa la dhahay taleefanka sida loo isticmaalo idinka tusaaya waxaad tegaysaa maxaa la dhahay taleefankaaga iska diiwaan gelinaysaa joorabka marka xageen tegaya shaashada ujeedin oo taleefankayga waxaad tegaysaa adoo taleefankaaga haysta waa iska diiwaan gelinaysaa joorabka taas mar hore soo deji waa haya waa optionkaas waa ii degsay ha ku degsanaado oo muhiim ah taleefanka trade kuma sameyn kartid xogaa waxa waaye waa laga fiican yahay trade markaa sameynaysid computerka ku fiican hadda waxaa idinka tusaa taleefanka waa iska diiwaan gelin kartaa oo hadhow markaa is diiwaan gelisid taleefankaaga iska diiwaan gelisid waxaa ku sameyn kartaa computerkaada tagaysaa waa caadi gmailkaaga iyo waxaad gelinaysaa website kooda booqanaysaa miya aga computer ku isticmaalaysa hadda oo kale shaashada taleefankayga u jeedin soo ma si fiican meeshaan ku qoraysaa qoraalka laakiin ma muuqdo ma website-ka IQ option la qoraya IQ google-ka laga galaya soo ma martin waxaa kuu soo baxaya IQ open IQ option account ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid get started for free ujeedino get start for free ku dhufanaya gmail-kaaga iyo password-kaaga gelinaya si fiican gmail-kaaga iyo password-kaada gelinaysaa dadka u samaysan yahay insha Allah habeen dambe waa soo qabanaynaa waxa waaye tareeda ay arkeen horteena ku sameynayaan istaraatiijiyada u saxeynaa insha Allah waxa waaye insha Allah anagana beriyaan samaysanayna hala samaysto waxa waaye istaraatiijiyadaas waxa waaye maxaa la dhahay training oo master marka haddaan documentigayga hadduu ii diyaarsan yahay reelna waan samayn karaa soo ma saas kaga sii diyaar garow ma real ha sameyn muhiim realka waxa waaye documentiga ku diyaarsanaada realka markii oo istaraatiijiyada ay ku shaqeyso ma aragtay groupka waa ku jirtaa WhatsAppka waa is caawinaynaa qofka marka waxa muhiimadda horta waxa waaye inaad fahantid maxaa la dhahay waxaan istaraatiijiyada inaad fahantid platformka aad fahantid markii intaas aad fahantid oo aad dhahay macallin markaan diyaar ahay waxa waaye waa laga caawinayaa waa sida loo farfaagiray waxaas dhan waa sameynaynaa markaa sameyno waxa waaye
adoo gacantaada ku buuxdo oo kalsooni qabto inaa ku fasaxno waa markaas marka shuruudihiisa waxay zoomka laakiin hadda telefoonka waan ka soo geli karaa sooma zoomka computer baan hadhow ku isticmaala zoomka waxa waaye telefoon waa kasoo geli kartaa hadda xogaa khadka waa bas horta ii soo qora comment ii soo qora qofku inta uu u samaysan yahay oo lambar 1 ay soo qoraan inta oo u samaysan yahay maxaa la dhahay platform inta u samaysan yahay Abdurrahman Mahmoud oo u samaysan yahay Maxamed Atan yaa kale oo u samaysan yahay inta uusan u samaysnayn lambar 2 soo qora insha Allah marka oo course-ka dhamaado qofkii diyaar waxa waaye groupka iska caawinayna inta kalena waxa waaye break samaysanayaan inta uusan u samaysnayn lambar 2 soo qora lambar 2 xageen ku soo qoraa ma commentiga ma aragtid miya ima muuqde dib ma lahan جاتك ماشي قرنت الأخرى جاتك ماشي قرنت بلاتفورم هوست فري معاكم شارع participation كفيل participation جاتك مالك قرنت فري جاتك قرنت participation markaan participation soo galaa miya ما participation قلنا جاتك كسو مكحكي waxay muuqdo waa share iyo participation iyo more bis ay muuqda participation ku dhufo more kan chat ka sii galaa si fiican aye waa fahminaa aad uma santi isku day qaarkiina fahansan oo samaysan karo xisbitaan caawa بريتو حاسمين وسوق لنا استراتيجي نمبر 2 وسوق قري سومركن معلم سفي عن ما سنتي حال اسكو دايو ان سو سميا انت او سميسن yahay waxa waaye khasi trade gareeyaan waxa waaye platform ku gudihiisa si fahmaan waxyaabahan oo dhan assets ka fahma maxaa la lahaay time expiration time ka fahma meesha amountiga la dhiganayo muhiim waaye markaad rabtid example arti maanta oo unless asmaysid arti suuqan ma kora ogala ma hoosa ogala markay ku soo kala baxdo waxa waa meesha ugu horeysa fiirinays waxa waa horta maxaa la amountigaaga rate inta ku galaysid muhiimadda waxa fiirsanay meeshan amountigana iska saxay waxa laga yaabaa adoo 100 ku jirto in 100kii ay ku saaran tahay oo kale meeshan adna $100 account-kaaga ay ku jirto oo waa analyze gareysay 100kii hal mar aadna kali iska dhufid maxaa la lahayaa meesha u kala leeyahay u ka shid oo laga yaabay markaas in oo prediction-ka oo khaldamo suuqii oo luusi qoday hal mar khasaaray lama baahno muhiimadda waxa waaye mar walba la soco amountigaaga sidoo kale waxaa la soconaya maxaa la lahayaa stamkaaga stamkaaga inaa muhiim ah la socoto marka intaas ka adag tahay oo focuska labadan asaarka waxa waaye oo istiraatiijiyadaadan ay ku waafaqdo markaas waxa waaye trade waa gali kartaa kalsooniya qabtaa luusa imaado ama winha imaado waxa waaye markaas si kalsooniya ku trade gareysa marka muhiimadda waxa waaye macallin casharkii xalay oo ay dhaafay fadlan haddaan heli karo hadda ma dhageysan lahaa casharka xalay waxa waaye waa helaysaa insha Allah waxa uu group telegram ku jira group telegramka linkigiisa whatsapp ka soo dhignay meesha ka gal waa arkay telegram waa ku jira telegramka ku jirtaa haddaan join iri hadda join dhahday uu yaala halka video yaalabo okay akana marka marabna casharada inay horta waxa waaye 30 minute mid kale
inay ka badnaadaan waa duubeena hadhow waxa adkaanaysa dadka inay daawadaan marka wax su'aal ah hadhow dambe markii casharadan istiraatiijiyadan waxaan ay dhammaadaan waa 1 week miya horta waxa lagu soo koobaya mise waa 1 month 1 week oo waxa waaye master waxa waaye muhiimaddu waxa waaye inaa fahno iyo qofka waxa waaye inuu platformka fahmo istiraatiijiyada uu fahmo waxa waaye 1 month waxa uu dhex jirtid muhiim ma ahan waxa waaye marka intaas fahantid si special ama si personal waxa la kale waa u raadsan kartaa mogtahay wixii concept waa haystaa istiraatiijiyada aad ku shaqaysatidna waa haystaa wax kaa dhimo ma walaanbo marka waxaa muhiimaddu waxa waaye platformka inaad fahantid sidoo kale inaad fahantid maxaa la dhahay analyska ama istiraatiijiyada lagu siinayo inaad fahantid marka intaas fahantid inaad iska fiirin kartid maxaa la dhahaa fundamental waa idin tusaynaa website-ada ugu fiican iyo meelaha ugu fiican oo aad kala socon kartid maxaa la dhahaa eventiska ama newska aad kala socon kartid marka intaas ogaatid ma u baahnid waxaa 1 bil iyo 5 bil u daba socotid laakiin muhiim waayo oo waxaan inaa adi markaa fahantid joogii iyo wixii qaabkiisa u socdaan waxa waaye waa ishagi kartaa marka intaas si oo personal ah u sameysane oo waxa waaye oo intiime oo trainingkan qaadatana waxa waaye si oo maxaa la dhahay support oo every time waxa waaye waa wixii culays jiro waana la soo wadaagi kartaa waxa waaye zoomam oo maxaa la dhahay session free ah soo gali doonaa anagoo live train ah wada sameyn doonaa qofkii markaas oo u baahan hataa signal iyo waxaas soo saarayna waxa waaye waa isla shaqeynayna laakiin muhiimaddu waxa waaye inaad adi fahantid oo kalsooni aad dareentid wax kaloo su'aale isla soconaa si fiican zoomka waqtigiisa dhammaan rabo 5 minutes aan noo harto wax su'aale inta hadda ka soo hadalnay hal mar soo dulmarno dadaa gadaal ugu soo biiray hal mar markaa rabno horta in IQ option aad ka trade gareyno waxa lanoogula baahan yahay waxa waaye saddexdan inaa haysano saddexdan waxa waaye trading account inaa haysano waa waxa hadda idin dhahaya account-ka samaysta sidoo kale inaa haysano maxaa la dhahay inaa doorano maxaa la asset ama marketka aad trade gareynayno ma forex aad trade gareynaynaa ma binary aad trade gareynaynaa ma digital aad trade gareynaynaa stock ma trade gareynaynaa inaa juice sameyno marka intaas sameyno maxaa rabnaa inaa sameyno prediction inaa samaysid oo predictionka maxaa waaye inaa analyze samaysid oo kale ma hoosa u raacay suuqa ama kora u raacay saddexdaas inaa samaysid maxaa kale oo IQ optionka maxaa waaye waa broker oo regular meelaha oo ka maxaa la dhahay ka diiwaan gashan yahay saddexdan maxaa la dhahay horta waa asiga IQ optionka lagu sheegayo waa broker maxaa meeshaan waa sharciyada oo haastana saddexdan sharci waaye asna waxa waaye main maxaa la dhahay main office-kiisana waxa waaye Cyprus waaye sidoo kale maxaa IQ option scam miya ama wax sharciyeysan waaye oo waxa dadka lagu dhacmiya maya IQ option scam ma ahin waa wax sharci ah oo regulated ah wuxuu kaaga baahan yahay maxaa la dhahay inaad leedahay skillskii iyo istiraatiijiyadii inaad leedahay iyo maxaa la dhahay marka intaas leedahay lacagtaada safe waaye waxay ku xiran tahay sida aad u trade gareysid ku xiran tahay waa khasaari kartaa haddii aadan lahayn skillskii iyo istiraatiiji fiican haddaan lahayn waa khasaari kartaa haddii intaas aad leedahay lacag waa ka samayn kartaa wadamo qaar aa jiro oo IQ optionka aan laga isticmaali karin intaan wadan waxa waaye lagama isticmaali karo IQ option Mareykanka ugu horeeya Canada ku xigta North Korea Australia Belgium Iran Syria South Sudan Russia Palestine Steve Japan Israel intaan wadan midkood kamid ah haddii aad tagtid waxa waaye ma ku suurad galays in oo maxaa la dhahay platformka ama IQ option aad ka trade gareysid IQ option labadan oo kala qaybsamaa oo waxa waaye marka real aad ku trade gareynaysa iyo mar oo practical aad ku trade gareynaysa ama demo account aad ku trade gareynaysa muhiim waa qofkan inuu demo account sameeyo maxaa la dhahay oo trading sameeyo ilaa bil ama 2 bil
haddii professional aa noqoto hataa strategicalaas aa heli kartaa marka strategical aa heshid waxaa waaye inaad demo horena kusoo tijaabisid waaye waxaan inay shaqaynayaan oo laisku halayn karo dan realkaaga aa imaad maxaa kaloo noo xigo demoga waa uu ku sharxayaa demoga waxaa waaye ma u baahant inaad deposit samaysid waa lacag virtual ama lacag fake ah oo si free ah meesha ugu jirto waa imaanaysaa trade ku sameynaysaa oo waxba waa isku tijaabinaysaa marka intaas wada fahanno waxaa waaye trade waa sameyn karnaa intaas haddaa fahantid oo intaas aad samaysid waxyaaba lagaaga baahan yahay intaas waa intaas haddii aad samaysid waxa waaye akoonka demo waa furan kartaa demoga markaa furtid waxa waaye istaraatiijiyadeena galeynaa markaan accountkan demo aan samaysto shaashadda hadda adugu isticmaalaysa hadaayo waa rabti inaad istaraatiijiyadii waxaan ugu tusid asaa hadhow si automatic kala ii geynaya miya tan hadda muuqataa tanuu ku goynayaa oon waxa waaye markuu ku geysaana kuu soo noqonaya waran maxaa lahay laan kuu noqonaya saa camal kuu noqonaya ma kuu lahaanays kanalis ma kuu lahaanays kanaliska marka waxaa laga saxdaa dhankan leenkan bidixda kan u horeeyo jaartiska intaa ka dooranaysaa markaa jaartiskaan dooratid inta imaanaysaa waxaa waaye waxaa dooranaysaa maxaa lahay kanaliska time framekooda dooranaysaa markaa kanaliska time framekooda dooratid waxaa waaye saana kugu soo muuqanaysaa shaashadaada halkaana balaskan waxaa ka raadinaysaa lacagaha ka raadinaysaa beeriska halkan ka raadinaysaa marka aragti trade inaad gashidna koraa u galaysaa ama hoos u galaysaa waxay ku xiran tahay markaas waxaad samaysid maxaa lahay analyskaaga ku xiran tahay analyskaaga ku xiran tahay si guud saana kugu soo muuqanaysaa shaashadaada insha Allah habeen damba sameyn doonaa istaraatiijiyada idna waa qaadan doonaa aydankana waa idin soo qaban doonaa si waxa u fahanteen oo waxa inaad sameyn kartiin waxa meeshaan idinkaga muuqdo dhan inaad wada fahanteen in kale eegayna marka gabagabadii aad soo gaarin wax su'aale عليكم السلام معلمون كل برنامج waa ka soo yarad dhacay si fiican kaliya waxaan rabaa ina aan wax ka ogaado si u shaqeeyaan laadahan chartiska candles fiisiyoore waa baran doonaa waa maxay u shaqeeyaan waxay ku xiran tahay waxa waaye hadba jihada uu suuq u socdo sida hadda oo kale tradekan hadda aan ku jirno oo kale waxa waaye halkaana ka soo raacnay oo markuu inta maraayay waxa waaye waxa hoos u sii socdaa oo waxa waaye waa weyn gareynaa markii aad ogaatidna in candleskan ay kor u socdaan greensan oo candlekan cagaarka oo sameystan waxa waaye kor u galee marka iska gal ma ahin oo candlekii furmaba inaa raacid ma ahin oo muhiimadu waxa waaye waxa la jiro candle physiology ama waxa jiro waxa la istaraatiijiyooyinkaas aad ku analyze gareysanaysaa suuqaaga saaranaysaa maxaa la jartiskaaga shuruudahooda iyo maxaa la confirmationkooda waa ku siinaynaa markaas waxa waaye dhanka u raacaysid ayaga ku sheegay muhiimadu waxa waaye sidoo kalena waxa waaye meelaha kale waxa ugu duwan waxa sameeynayna maxaa la supply zone iyo demand zone ah qaadanayna istaraatiijiyada ugu fiican oo mar walba oo available oo waqti walba uu shaqeysan kartid waa xataa marka la joogo maxaa la dhahay OTC market marka la joogo waa ku tiri karaan marka saas u shaqeeyaa aad macaan ma tahay su'aasha labaad weydiinay waxa weeye IQ optionka dad badan baa waxay yiraahdeen sida forex oo kala yaani maxay ay tahay dadka ay u shaqeystaan IQ optionka uga shaqeysan kara sababtoo ah waxa adag habka loo verify gareynayo uu ka duwan yahay habka marka forex caadiga oo kale iyo habka maxaan ku raadayay lacag la bixido kala way ka yara adag tahay marta dhanka oo verify creation oo macquul verify-ka waxa waaye aad u fududahay ma waxa adag waxa waaye maxaa lahaay marka withdrawal sameynaysid withdrawalka waxa waaye qaadanayo maxaa lahaay
haddii oo $100 ama haddii $1,000 aad dhigtid oo faa'iido la samaysid isla lafahaagii in la eg aad bixi kartaa wixii faa'iido aad samaysid waxaa u baahan tahay in aad u markid maxaa la dhahay e-wallets waxyaalahaas oo sida hadda badanaa Soomaalid waxay isticmaashaan maxaa la dhahay perfect money isticmaashaan perfect money isticmaali kartaa ama waxaa isticmaali kartaa Skrill perfect money-gan waxaa kugu adkaanaya mataqaanaa in bangigaaga aad ku xirtid oo bangiyada ma ogolo ku xiri kartid waxaa ugu fiican Skrill-kana waxa waaye kama shaqeeyo wadankii laakiin waa sameynaynaa waxaa isku dayaynaa in idin verify gareyno maxaa la dhahay qof walbo maxaa la dhahay inkaan qaatay 7 days qaatay hadduu u baahdo Skrill waa loo sameynayaa badanaa way jiraan magaalka ee dad verify gareeyo ilaa $50 waxaasay ka qaadaan lacag yar oo adi 10% oo kale oo aan ka badnayn aan $15 aan ka badnayn oo kale ku bixiyso ugu verify gareynayaa wuxuu ku sameynaa marka wuxuu ugu sahlan yahay instant waa si haddii isla hadda aad ku baxid hadda uu badato waxay kaa maqnaanay 3 hour kaa maqnaanay waa ama 3 hour kaa maqnaanay ama 2 hours kaa maqnaanay ama marka uu badato 1 day kaa maqnaanay oo waxa waaye isla markii ku soo dhacay isla markiina bangigaaga waa u weydiisan kartaa oo ku verify gareynaa bangigaaga ku xireena marka waxa uu fiican oo la isticmaali karo Skrill way jirtaa cilada waxa waa ka adag yahay dhanka forex marka la joogo waxa waaye noocyo badan aad sameyn kartaa oo waxaa kula bixi kartaa maxaa la dhahay wire transfer ama swift code waxyaabahaas kan uu ka duwan yahay maasha Allah si wacan marka bangiyada lagu xiri karayo Skrill-ka oo kale bangiyada macquulka ah ee lagu xiri karayo oo Soomaaliya ka laga xiri karayo waxa uu fiican maxaa la dhahay Bremer Bank qaadan karo bangiyadan kale ma qaadan karo qofka hadii Bremer Bank uu leeyahay oo diyaar u yahay Skrill oo u baahan yahay Skrill-ka wuxuu ka caawinayaa in qofka Skrill lacag uu dirtid bangigaaga aad ku diri kartid aad kala soo bixi kartid aad deposit ku sameyn kartid withdrawal ku sameyn kartid instant waasi oo waxa waaye isla markiiba marka waa idinka caawinaynaa isna qofkii diyaar insha Allah aad baa mahadsantahay insha Allah halkaas sida waa ka sii raabsamay laakiin haweenka insha Allah si fiican baa ula adapti gareynaya bilahay insha Allah waa record graysin waxa waaye waxa idin dhaafay ma insha Allah halkaas ku soo gabagabeynaa insha Allah waa mahadsantahay